wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maamulka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Axmed Dubad Cali ayaa maanta soo gaaray magaalada Cape Town kadib markii uu casuumaad ka helay jaaliyadda reer Galmudug ee ku dhaqan dalka South Africa. wasiirka ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town si weyn ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town. aaday macnaha u soo dhaweynaysaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda ka soo jeeda Galmudug wasiirkuna booqasho oo nagu soo gaaray marka soo dhaweyn wacan mudane wasiir welcome to Cape Town iyo jaaliyadda Soomaaliyeed oo aad iyo aad kugu hambalyeynaysa kuna soo dhaweynaysa diyaarna kula ah inay kula wadaagaan horumarka gobolka iyo waxa la wixii macluumaad aad u wado marka ku soo dhawow. laakiin waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow South Africa gaar ahaan Cape Town jaaliyadda Soomaaliyeedna aad iyo aad ayay farxad u qabtaa in kastoo wasiiroo yimaado inuu saan u soo booqdo inuu yimaado lana qaybsado dalkina uu ka siiyo warbixin iyo talo uu ka siiyo. waxay caadadayna ahaydayba inaan qof kasta oo mas'uul ah oo metelayo qarankayna Soomaaliyeed haday ahaaleed mid guud iyo haday ahaaleed mid gobolba inaan soo dhaweyno marka waa wadadii nolon ku yaqiinay ku soo dhawow Koonfur Afrika gaar ahaan Cape Town insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan waqti badan wada qaadan doono maadaama uu daalan yahay wasiirka uu safar dheer soo jiray hada kalimaadkayga intaasan ku soo koobaya saxaafadiina aad iyo aad u mahadsantihiin. intaa kadib wasiirka ayaa dhankiisa jaaliyadda ugu mahad celiyay sida wanaagsan ee ugu soo dhaweeyeen magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. jaaliyadda Soomaaliyeed dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed jaaliyadda Galmudug bahda saxaafadda oo runtii ka aqaan TV-ga qaranka iyo Universal TV dhammaan waa salaamantiin sidoo kale aad waxaan ugu mahad celinayaa sida sharafta badan soo dhaweyseen iyo wali waqti dheer oo taagneedeen safar shaqo ah socdaalkaygu waana ka dhigi doontaan hadduu alla yiraahdo qayb badan oo kooban insha Allah inkastoo codsi badan oo jaaliyadda xiggeeda u badan waxyaabaha aan midaan u badan jaaliyadda dhawaantina la kulan laakiin marka hore salaam waxaan ka wadaa madaxweynaha Cabdikariin Guuleed gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ku-xigeenka Maxamed Xaashi Carabi dhamaantood salaamayeen jaaliyadda waan ka soo wada ballan insha Allah waxaana ka wada warbixino badan hadduu alla yiraahdana waa sheekaysan doonaa waxaan rabaa waqti inaan soo koobo. waa markii ugu horeysay oo magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika uu soo gaaro mas'uul ka socda maamulka cusub ee Galmudug tan iyo xilligii la aasaasay. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, Cape Town.